السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. سعود إن شاء الله. مركات صور حضرتنا ديالت موضوع بالله بينا إن وحوي صلى سعتان وما ننكي سدحات أما حلقة دي سدحات أيام مانت إن شاء الله تعالى وهل دونا تاريخ ذي دولة عثمانيين. حلقة دي سدحات مانت مركا وحنقصو قادينا وحيت هاي وأنا قال لنا بقر كيل أورنجري أورهان غازي أو هاي ويلكي أودلي كان دحل لهاي سلطنة دي الدولة يكونوا وسوسمية عثمان غازي إنك لو معدري أما الدولة ده أساس كذا يو بيصير ده إن إسكال هاي مقعدا أسيق إسكال هاي مركا ماشي كسب باللعبتي جهدي لو سومري سو ديسيديدي إن تيرك لو تاجو iyo nidaamka soo martay iyo sharciyada soo martay waan ka soo hadalnay oo sidaan dib ugu noqon dadka maanta gaar nooga soo gaaray kalaan xoogaa aan muraajaca u sameeyno ko Sulaymaan Shah ayaa ku soo bilaabay silsilada in fikirka dawladda la sameeyo ama la isku xirnaado ama midnimo la sameeyo dadkii qarn adiga noolay markaas 700 sano ka hor Sulaymaan Shah markii uu fikirkaas uu ku dadaalay Turkidii iyo Carabtii yani Suuriyaanki Iiraaniintii dadku waagaas noolay in ay ka dhaadhiciyay in dawladna noqdo in nidaam la sameeyo in maaragtay la isku tago waxa weeye uu ku guuleystay waxa ka dhaxlay markaas oo hawshii uu soo bilaabay ka sii waday meesheedii ninkii la oran jiray Ertugrul Gazi oo ahay awlaadii kamid ahay ninka la yiraahdo Sulaymaan Shah Ertugrul isla meeshaasna ka sii bilaabay waa uu sii hormariyay juhdi uu sii galiyay waxay sii gaartay marka silsiladii Cusmaan waa ninka loogu magac dari doono ama magaca iska leh dawladda Cuthmaaniyiinta Cuthmaan markuu hawsha meeshiis ka sii waday yaraantiisii lagu soo tarbiyay nidaamka dawliga iyo maamulka iyo horumarka Cusmaan waa dadaalay oo shalay waxaan ku sheegnay in uu ku guuleystay in maaragtay uu ummadihii waagaas qarnigiisa noolay Turkidii ha ahaato dadkii shucuurtii kale Carabtii Kurdiyiintii iyo maxaan ku raadayay Turkidii isku keeno hal calan iyo hal dawlad uu nidaamkeeda u aasaaso kadib ciidan la tababaro ciidankii maaragtay lagu sameeyo duulaan la isaga dhiciyo cadawga markaas islaamka duulaan ku ahay marka xaaladaas markay soo martay shalay waxay noo mareysay waxay ahayd in Cuthmaan markii uu galay sheeg ama uu bilaabay nidaamka ama xilka uu la wareegay sultanada dawladda ama wasiga ka sii wada meesha aabiis uu keenay Ertugrul oo Cuthmaan dawladda uu magac daray oo dadku isku xiray oo united uu sameeyay midnimo uu sameeyay la isu tagay waxa meesha ka timaada marka waxay tahay sheeg waatii Cuthmaan uu galay maxaan lahay dagaal markaas uu Karachi shalan ku soo sheegnay dagaalkii markii uu galay oo uu ku guuleystay kadib dadka waagaas noolay muslimka ahaa iyo kuwa غير muslimka ahaa ay fahmeen in iska dhicin ka cadow ama dadkan gaalada ee maaragtay duulaanka ku ah nidaamka dawliga oo dad islaam inay meel isu tagaan oo dawlad dhistaan oo ay midoobaan diidana markaas waxa jirto marka waxay tahay Cuthmaan xillidiisu dambeysay Cuthmaan asaga ciidada wuxuu ku dhintay Cusmaan Gazi wuxuu ku dhintay 67 jir marka cimrigiisii adiga ilaa 60 sano u dambeysay wuxuu xoogaa xanuun iyo bukaan socod buu iska noqday oo sidiisii hore ma uusan ahayn daana way heysay de waxa uu qadar loo iska heysay laakiin Cuthmaan marka wuxuu ku haminayay oo intii uu markuu aasaaso dawladdii uu ku taamay waxay ahayd inuu xoreeyo markuu u horeyso magaaladan la oran jiray Bursa oo Turkiga kamid ah magaaladaas marka Cuthmaan intii uu san xornimadeeda ama maaragtay uu san ku duulin waagaas gaaladii haystay la oran jiray Byzance waxa dhacday in qadarkan uu helo uu xanuunsado uu hawsha wadi waay marka ilaa iyo cimrigiisa 60 sano ka harsaneed ee ka dhineed
waxa weeye wuxuu u dhiibay xilkii ama uu usii dhiibay oo maamulkeedii iyo horujoog inuu noqdo uu ka dalbaday ama uu maaragtay faray wiilkiisa loo oran jiray Orhan Gazi oo ah maanta aan ka hadlayno mawduuciisa ama xalqada saddexaad aan isaga u hadlayno marka Osman Gazi marka qadar uma yeelan ama nasiib uma yeelan in uu arko magaaladii uu ku taami jiray oo uu ku fahminayay inay noqoto caasimadda ad-dawlatu al-Uthmaniya in ay sheeg la xoreeyo oo calankiisa laga taago oo dawladdiisa ay meesha qabsato hamigiisa ahay iyo fikirkiisa ahay macalasaf cimrigiisa ayaa gaari waayay marka dawladda al-Uthmaniya markii la sameeyay Uthman xaaladdan ay soo kordhay wiilashiisii marka waxa kamid ah Orhan Gazi oo aan maanta ka hadlayno Orhan Gazi marka hadii waa nin yaraantiisii lagu soo tarbiyay dawladnimo lagu soo tarbiyay maxaan ku raadayay qaabka loo hogaamiyo dawlad soo marka Orhan yaraantiisiiba sida aabihiis uu ka dhaxlay oo ka arkay dhaqan ahaan waxa weeye hawsh meeshiidu ka sii wada isagoo aabihiis nool ayuu maamulka dawladda Uthmaniyiinta meesheedii ka sii waday oo maamuli jiray ilaa askarnimo ilaa iyo maamulkeeda sare hadii meel loo guuriyo hadii haduu Ilaahay guurin yahay meel lagu duulayo nidaamka waxa la weeyay Orhan Gazi Allah naxariisto haddaba marka Orhan Gazi wuxuu dhashay sanadku markuu ahaa 1274 wuxuu ku dhashay meel la oran jiray Sood ama Sogod ay u yaqaanaan dadkan ajaanibta Turkiga ku taala magaaladaas uu ku dhashay waxa weeye cimrigiisa marka dhalinyaronimadiisa wuxuu ku soo aqaatay aabihiis oo maaragtay ka dhageysan jiray kana baran jiray taariikhda iyo nidaamka dawliga markuu Uthman la wareegay maamulkii isagoo aabihiis noolba uu la wareegay yaa wuxuu ku guuleystay marka inuu la wareego magaalada la oran jiray Bursa magaalada Bursa marka waa magaalo markii loo fiiriyo dawladda Uthmaniyiinta iyo Turkidii waagaas nooleedba ay ahmiyad weyn ugu fadhisay oo la oran karo waa magaalo istiraatiiji ah haddaba marka Uthman xanuunadii soo qabsaday iyo ilaa geeridiisii markii la gaarayba oo uu dhintay Ilaahay ha u naxariistay isagoo nool iyo gadaashiisba wuxuu meesha uga tagay waxay ahayd wiilashiisa kamid ah Orhan Gazi oo nin dadaal badan karti badan aan maanta aabihiisa sheeg ku murugay yani hadduu Ilaahay Kuwait ma hayo kaga walwalsiinaynin in mas'uuliyadda meel la ogato marka dawladda Uthmaniyiinta marba marka ka sii dambeeyay waxay ahayd dawlad sii weynaanayso dawlad sii hormarayso dawlad hadduu Ilaahay ku yahay dadkii waagaas ku hoos noolay ha ahaato Turkidi ha ahaato Kurdiyiintii ha ahaato dadkii kale muslimka ahaa iyo غير muslimkiiba intaba waxay ahaayeen dad ku hoos nool ama ku qanacsan nidaamkii iyo taladii dawladda Uthmaniyiinta marka Orhan wuxuu kaga duwan yahay awowgiisa yani abkowgiisa iyo awowgiisa aabiis wuxuu kaga duwan waxay ahayd in uu maaragtay intuu dawladda hogaaminayay dawladda Uthmaniyiinta uu horumar badan gaarsiiyay hadii marba mar ka sii dambeysay dawladda Uthmaniyiinta way sii kordhisay shalay waan sheegnay Uthman intuu uu noolay iyo intuu maamulay dawladda Uthmaniyiinta horumarku gaarsiiyay intaas marka waxa si laba jibaananta waxay ahayd in Orhan uu sii qabto meeshii uu ku guuleysto in maaragtay la furto magaalada Bursa maaragtay muhiimku u ahayd dawladda Uthmaniyiinta isla markaasna uu ku hamin jiray Uthman in ay noqoto magaaladaasi caasimadda dawladul Uthmaniya kadib waxa dhacday marka Orhan asigoo dadaalaya oo dardaaranka aabiis inuu fuliyo rabo oo inuu maaragtay hadduu Ilaahay ku run yahay hawsh aabiis uu ka dhaxlay meesheeda inuu ka sii wada isagoo ku dadaalaya waxa Ilaahay ku guuleeyay furashada magaalada Bursa wada taariikhda maanta fiirisaan aad baartaan ka dhaxli kartaan ahmiyadda ay u leedahay taariikhda dadka Turkida iyo caalamka Islaam marka dadka Turkiga yimaado kale inta badan ama culumada ha ahaato mashaayikha ha ahaato inta badan magaaladaas waxa lagu naanaysaa inay tahay magaalo culumo magaalo maaragtay boqortooyin inay tahay marka dadka taariikhda daneeya ama taariikhda jecel magaaladaas way boqdaan oo way soo arkaan oo meesha waxa ku duugan Uthman waxa ku duugan Uthman ku duugan boqortooyin badan ku duugan boqorro badan ku duugan marka Orhan
dadaalkiisii waa miro dhalay oo hamigii aabihiis uu ku hamin jiray hadafkiisana uu ahaa in la xoreeyo magaalada bursa waa ku guuleystay. kadib marka maxaa dhacday, bursa waxaa ku noolaa marka dad turki islaam isugu jira iyo kuwa maaragtay markaas dad waxaa jira oo ruumiyiinta oo kale iyo dad kala duwan ayaa meesha ku noolaay oo isugu jira muslim hayru muslim yahuudi diimo kala duwan kala aaminsanay. cusmaaniyiinta markay xoreystaan marka magaalada bursa waxaa isbedela marka nidaamkii dawliga ahay. dadkii meesha ku noolaay waxbay isweydiinayeen, annaga waxaana xukumay waxay ahayd ay dhihi jireen dowlad christian ama byzance kaafir oo maaragtay gaaladu ay maamuleysay, byzance la yiraahdo. nidaamkii ku maamuleysay qaar waxay ugu qanacsanaa waxay ahayd in dowlad ay tahay dowlad gaalo oo ay diinkoodii wuxuu wax walba ay samayn jireen, xataa dulmi haddii ismaan ay ku raaci jirtay. iyo meeshii dowladdii byzance ay maamuli jirtaan boqortooyadii byzance ay maamuleysay ay la wareegtay dowladda cuthmaaniyiinta, waxaa imaatay dadkii inay is yidhahdaan marka meesha waxaa isbedel baa ka dhacay oo meesha waxaa ka baxay byzance oo in badan maamuleysay oo horumar gaarsiisay. say ayaga u arkaan dadka qaarna ay leeyihiin dhibaato badan ku haysay, ay leeyihiin waa ka coroono cuthmaaniyiinta soo dhawaato. marka cuthmaaniyiinta marka meeshii degeen sidaan hore usoo sheegnayba boqoradii cuthmaaniyiinta ee dowladda cuthmaaniyiinta soo maamuleysay ee hadduu ilaahay ku roon yahay nidaamkeeda gacanta ku haye marnaba waxay mar walba waxay iska ilaalin jireen in ay u geystaan dulmi, in ay ii sheeg dadka ku nool markaas diimanka kala duwan haysta ay ku xadgudbaan, oo haddii dhaqankooda iyo diinkooda iyo ictiqaadkooda aan la faragelin lagu sameynin, si nabad ay ku noolaadaan, cadaalad ay ku noolaadaan. waxa marka soo jiidashanayo oo dowladda cuthmaaniyiinta lagu daneynayo waxay ahayd nidaamkaas. marka orhan wuxuu ku guuleystay magaalada bursa in la xoreeyo. sidaan shala sheegnay cuthmaan muxuu sameeyey, dowladdii uu sameeyey waxay sameeyeen wuxuu sameeyey lacag dowladdiisa u gooni ah, dhaqaale iyo nidaamku isugu dabariday. marka orhan waxaa loo dhiibay waxay ahayd system hor usii wadidiisa ay aada u fududahay. dabcan culays waa jiraa, laakiin haddana markii loo fiiriyo wixii meeshuu eber uu kasoo bilaabi lahay maahana meel dhex inta loo keenay meeshii dhexe u asiga uu kasii wado. haddaba marka orhan howl adag baa sugeysay, dadaalkii iyo juhdigii u galay marka wuxuu ku guuleystay. sidaan haddan kugu sheegi doono taariikhda magaalada bursa waxaa la xoreeyay waxay ahayd 1321. waa magaalo marka taariikhdeeda cajiiba. inta badanna dadka turkida ilaahay wuxuu ku maneystay waxay weeye taariikh dahabi ah oo ay kaga duwan yihiin ama ay ugu faanaan shucuubta kala duwan ee caalamka, oo ay ugu faanaan dowladaha kala duwan. hadda markii la isugu yimaada meelaha ay dhihi karaan annaga ajdaad ama waxaan lahayn awowayaal usoo halgamay dowladdii yani diinta islaamka, usoo halgamay shucuubta muslimiinta ah iyo kuwa masaakiinta ee diimanka kala duwan haysta. markii la xoreeyay marka 1321 markii la xoreeyay magaalada bursa, waagaas dad soo socotaan hadda ma jirin nuclear, ma jirin xab AK47 ma jirin qoryaha kala soo qaata ma jirin. waxa jira waxay ahayd nidaam ah in seef lagu dagaalamo, waran lagu dagaalamo, oo xaaladda hadda aan ku jirno way kasii adkayd waagaas. marka dowladda cuthmaaniyiinta hoggaanka uu hoggaamiyey iyo maamulkii orhan waxay gaarsiisay horumar badan. marba mar kasii dambeysa, sanadba sanad kasii dambeeya waxaa badanaya dadka qaadanaya diinta islaamka ee aada ula dhacay nidaamka dawliga ee dowladda islaamiyiinta ee islaamka ee dowladda cuthmaaniyiinta. marka waxaa kaloo cuthmaaniyiinta ay maaragtay nasiib u lahaayeen meel walbo ay tagaan lama mucaaradin waa lasoo dhaweynayay, leanna waxay wadeen waxay ahayd falsafad iyo politika ka duwan kuwii ayaga ka horreeyey. marka waxay guul ay ku gaareen marka meel walba ay tagaan in dadna ay ka kasbadaan, dhulna ay ka kasbadaan. marka markii la xoreeyey magaalada bursa 1321 waxaa markaas isbedel ku yimaaday nidaamkii askarta ee dowladda cuthmaaniyiinta. يعني هذا أسكرت هذا اللي تعبره النظام كقاب كمان، لكن قاب كده ونواجه دولته ضغط الشعوب تقرن اسمه اللي كده يلم جرين. أورهان وحول سميه مركب بوليتيكا أما السياسة
in marka u horeyso askarta uu u yeelo awood iyo maaragtay tababar fiican uu siiyo ilaa askarta ay badato. dhalinyarada markii ay soo qaangaaraanba waxaa loo samayn jiray hadduu ilaahay koorun yahay tababar fiican. waxaa lagu tababari jiray in ay noqdaan dad dowladooda ilaashada. marka Orhan siyaasadiisii maadaama uu kusoo galay xukunka isagoo dhalinyaro ah, ahmiyadda wuxuu siinayay dhalinyarada. dabcan dadkiisa ka waaweyn ee aabihiis la soo jihaaday ee awowgiis la soo jihaaday isagoo ka tala qaadanaya si maaragtay ixtiraam leh un maaragtay amarkooda iyo fikradahooda ahmiyad u siinaya ayuu Orhan wuxuu haddana ku dadaalay in dowladda Cuthmaaniyiinta ay noqoto dowlad askar fiican leh, tababar fiican qaata. marka taariikhda professorada qaar ay ka hadleen ama kitaabada laga qoro dowladda Cuthmaaniyiinta waxaa la yidhaahdaa waa suldaankii ugu horreeyey ama boqorkii ugu horreeyey ee isku dabarida ama nidaam askar ah si wanaagsan ugu sameeya oo markaas Cuthmaaniyiinta noqoto dowlad laga cabsado. waagaas markuu Cusmaan soo bilaabay ilaa iyo Orhan uu sii waday dadka ama boqoradii waagaas boqortooyadii gaalada iyo diimankan kale isugu jira ee Asia ka dhisnay Armenia iyo wadamada kale ilaa Yurubtaas waxay kama cabsanaynin umaysan arkin dowladda Cuthmaaniyiinta inay noqonayso dowlad saameyn leh. laakiin markuu Orhan xukunka qabsaday sheekadu waa isbedeshay oo dowlad walba waxay bilowday marka in ay markaasi ku taxadarto in lagu soo qaadi karo duulaan, in lagu soo la xoreyn karo ama laga qabsan karo degmooyinka iyo gobolada iyo magaalooyinka iyaga ay haystaan. marka xukunkii uu la wareegay Orhan waxaa usii dheeray xukun askar yani si nidaam military ah ama waagaas hadii military ma jirin laakiin hadda askarun baa la dhihi jiray waagaas oo taariikhda sida ku qoran. marka nidaamkaas ayaa Orhan wuxuu ka caawiyey in laga cabsado dowladdiisa, in dowladaha kale ee kasoo horjeeda ama boqortooyada kale isaga dowladdiisa Cuthmaaniyiinta kasoo horjeeday ay ka heebisaan oo ay ka gambadaan isaga ninka la yidhaahdo Orhan. marka waxaan soo sheegnay in Orhan uu sameeyey nidaam dowliye, in askartii isku dabariday, in magaalooyin badan uu furtay. weliba markii uu furtay magaalada Bursa 1321kii waxaa isla markaas loo iclaamiyey magaaladaas inay noqoto magaalo madaxda dowladda Cuthmaaniyiinta. waa marka looga talin doono ama markaska looga talin doono dowladda Cuthmaaniyiinta oo markaasi waa dowlad markaas gaari doonta ilaa iyo 650 sano ilaa iyo 700 sano ku dhawaad in ay xukunkeeda iyo nidaamkeeda uu taagnaado. weli lama sheegin dowlad intaasu sano joogta xukunkeeda uu daa'im noqdo isu maamusha 4 qaaradood ilaa iyo 3 qaaradood iyo bar. marka magaalada Bursa marka waxay hooyo u noqon doontaa ama ay bilaabi doontaa nidaam dowli ah oo caalamka horumar gaarsiiya. marka markii la xoreeyay magaalada Bursa waa isbedelay sistamkii, askartii waxay heleen moral fiican, shucuubtii ama dadkii markaas Turkidii hawsha la waday Orhan aan dhahe waxay ku dhiiradeen marka ay fahmeen awalka hore cabsi waa ku jirtay. waxaa ku jirtay hadduu Cuthmaan uu dhinto Orhan meeshii ma kasii wadi doonaa, Orhan nidaamka ma sii wadi doonaa. yacni boqorba sida wiilkiisoo kale waxaa la leeyahay wiilka sida aabihiisoo kale juhdi muu gelin doonaa dowladdan. marka dadka waxay isdhahayeen boqorka haddii waqtigiisa cimrigiisa uu dhammaado ama uu dhinto dowladda waa dhammaanaysa. laakiin Cuthmaaniyiinta ilaahay wuxuu ku sharfay ama uu ku nidaamiyey in ay noqdaan boqorka kasii dambeeya inuu kasii wanaagsanaado ama uu kasii dadaal badnaado boqorkiisa ka horreysa oo aabihiisa. dabcan wiil aabihiisa ka wanaagsanaado ma jiro, laakiin waxaa jiro aabe wiilkiisa ku barbaariya ama ku tababara in uu meesha uu rabay sii gaarsiiyo hawsha uu wado markaas. marka Orhan wuxuu ahay buundadii dowladda Cuthmaaniyiinta inay kasoo dhex baxday dowlad shacab ah ay noqoto dowlad awood leh, gobollo badan furata, la dagaalanta boqorro badan oo boqortooyo badan kana xoreysa gumaysiga markaas dadka ay haysteen. Turkida marka waagaas ama Cuthmaaniyiinta waxay joogeen kaliya dhankan Asia oo soo xigta Suuriya iyo Ciraaq iyo wadamadan soo xigta. weli ayaga Yurub iyo Istanbul iyo Constantinople magaalooyinkan ma aysan qabsan oo dhankaas awoodooda ma aysan soo gaarsiisaneen. laakiin maalin kasii dambeysa taariikhda kasii dambeysa dowladda Cuthmaaniyiinta awoodeeda waa ay sii kordhaysa. markii halkaas ay marayso waxaa kusii xiga waxay ahayd magaalo la yidhaahdo Iznik.
magaaladaas marka waa magaalo ila nimankii businesska gaalada ahay markii laga furtay magaalada bursa waxaa kusii xigtay magaalo la yihahdo iznig. magaaladaas ay iyaga maamulkeeda haysteen oo iyaga ay maamuli jireen oo ay ahayd magaalo saldhig fiican oo central u leh cuthmaan. marka orhan wuxuu qorsheeyey waxay ahayd haddii magaaladaas uu ka furto in dowladda cuthmaaniyiinta ay noqonayso dowlad dhul aada u fiican istiraatiiji haysato aan lagu soo duuli karin, iyada waqtiga ay rabtona duulaan ay qaadi karto, ay xoreyn karto gobolka u baahan tahay. marka magaaladan iznig cuthmaaniyiinta waxay u noqon doontaa magaalo istiraatiiji ah dhanka waxbarashada iyo dhanka dhaqaalaha. kadib marka waxaa dhacday cuthmaan inuu isku keeno nidaamkii dadkii marjaca kula jiray, ama ha ahaado dadkii isaga la talin jiray, dadkii uu ka fikir qaadan jiray, dadkii uu maaragtay talada weydiin jiray, dadka uu maaragtay wax warsan jiray oo fikirka iyo talo iyo tusaalo la wadaagi jiray. ilan istishaarada waa shay aada u wanaagsan oo boqoradan ama suldaamadan cuthmaaniyiinta waxaa lagu soo tarbiyay waxay ahayd in go-aanka aysan dabcan go-aanka u dambeeya ayaga iskale, laakiin go-aanka keligeed aysan qaadan oo ay la tashtaan dadka lasoo dhisay nidaamka dawliga. hadda markii la fiiriyo boqoradan ka jirta carabahan oo kale waxaa laga yaabaa wiilka inuu arko boos uu aabihiis ka dhaxlay dowladdii markaas uu maamulayay, laakiin nidaamka iyo tarbiyada boqorada ama salaadiinta lagu soo tarbiyey cuthmaaniyiinta waa ka duwanaay dhaqamadan kale oo iyaga waxaa lagu tarbiyana waxay ahayd qof walba dowladdan inuu xaq u ku leeyahay sida intuu asiga xaq uu ku leeyahay. marka ma jirin anaa ina boqor ah, aniga ina suldaan ah, aniga kaaga awood badan ama aniga kaaga xaqla maysan jirin. dowladda cuthmaaniyiinta waxay ku dadaalaysay qof walbaba inuu ku qanco, qof walbaba inuu ogaado in ay dowladdani tahay dowladdiisa, ha ahaado qofkaas qof muslima. cuthmaaniyiinta waxay ahayd dowlad nidaamkeeda sidaas ku dhisnay. kadib maxaa dhacda marka markii la xoreeyey magaalada bursa iyo magaalooyin u dhowba 1324 dadkii marka waxaa bada dadka usoo guuraya dhulka ay maamusho dowladda cuthmaaniyiinta. dad badan baa usoo guuraya, dad badan baa maarata usoo qaxayay, raadinaya nidaam dowliya, raadinaya dhaqan iyo diin iyo ganacsi ay xor u yihiin. kadib marka waxaa dhacday markii burso ay noqotay magaalo madaxa dowladda cuthmaaniyiinta oo ay usii gudbeen dowladdii orhan, boqor orhan nidaamkiisii iyo maamulkiisii iyo horoboodkiisii oo uu waday dowladda, waxay xoreeyeen marka ama ay la wareegeen magaalada la yiraahdo iznig. magaaladaas marka dowladda cuthmaaniyiinta waxay u noqonaysaa magaaladii saddexaad, dadka qaarna waxay yidhaahdaan magaaladii afraad oo istiraatiiji ah ay xoreysaan oo ay la wareegaan dowladda cuthmaaniyiinta. sanadku markuu ahay marka 1331 magaaladan iznig naftarkeeda waxaa weeye waa magaalo 28 sano boqorada cuthmaaniyiinta ilaa laga soo bilaabo ertugrul ilaa iyo orhan waxay doonayeen magaaladan inay furtaan. marka waa magaalo mar walbaba ay ku duulayeen ama ay damacsanaayeen oo istiraatiiji ay dejinayeen boqorada cuthmaaniyiinta in ay la wareegaan. orhan marka aan leenahay waa suldaankii ugu xarakaadka ma dhaqdhaqaaqa badnaa, waxaa weeye inuu xoreeyo magaalooyin badan ahmiyad u lahaa dowladda cuthmaaniyiinta. markii la xoreeyey marka magaalada iznig 1331 markay xoreysaan magaalada iznig la yidhaahdo, ganacsigiibaa isku toosay, isu gudubitaankiibaa toosay, dadkii deganaa meesha ayaa ganacsigood iyo wixooda u kala toostay. marka orhan kow wuxuu ku guuleystay inuu dhiso askar ciidan awood leh oo ay dowladda cuthmaaniyiinta ku faafin karto fikirka ama nidaamka dowliga iyo midka islaamka. iznig markii la xoreeyey isla markiiba orhan meeshii asagoo ciidankiisa hogaaminaya ay furteen, ay maalmo meeshii la kala degay, khaniimooyinkii ay la wareegeen, ay magaalada xoogaa degtay. waxaa la furay marka madarasadii ama iskuulkii ama jaamacaddii ugu horreysay ee dowladda cuthmaaniyiinta. waxaa laga furayaa magaalada la yidhaahdo iznig. boqorkii u horreeyey ama suldaanka u horreeyey marka ee magaaladaasi furaya waa boqor orhan. yacni dowladda uu aabihiis ka dhaxlay wuxuu gaarsiiyey horumar ama isbedel wuxuu ku sameeyey dhanka waxbarashada iyo dhanka ciidanka. waxaa usii xigi doona marka dhanka dhaqaalaha. markii halka madarasadii laga furay marka dadkii
iyagoo aan lagu takooreynin diinkooda, iyagoo aan lagu takooreynin caqiidada, iyagoo aan lagu takooreynin jinsiyadeeda, waxay dadkii markaas shucuubta gobolada kala jira waxaa loo ogolaaday inay yimaadaan magaalada Iznik, ama ay maaragtay ay caruurtooda iyo dadkooda u keenaan inay dadka meeshaas wax ka bartaan. marka maamulkii boqor Orhan wuxuu kasbay ama maaragtay uu ku dadaalay waxay ahayd in dadka ku nool dhulka Cuthmaaniyiinta ay dhanka waxbarashada horumarka gaaraan. madrasadii waa la dhisay, dadaalkii dadkii waxbarashada ahay waagaasna waxbarashada markaan ka hadlayna jaamacad iyo master ama PhD ama bachelor waxaas ma jirin. keliya waxay ahayd in dhanka diinka la barto dhankan caafimaadka. dabcan waxyaaba hadda waxaa jiro qarnigana dadka u saacidaya teknolojiyadda, laakiin waagaas ma aysan jirin. oo sida hadda juqraafi oo kale ha ahaato waxyaabahan kale waxay ahaayeen wax tababar ah oo dadkii quruntaas waagaas noolaa kala duwan isaga dhaxleen ama ay u kala wareejiyeen. qofba qof kasii dambeeyay uu la wadaagay ahay in maaragtay hadduu ilaahay ku run yahay la sii gaarsiiyo. marka madrasadaas waxay soo saartay arday barata maadi iyo diiniba. kadib marka maxaa dhacay? taariikhda marka hadda way soo socotaa, laakiin waxaan dib u noqonaynaa xasuusin yar. Cuthmaan xilliga uu noolay oo uu ku haminayay inuu xoreysto magaalada Bursa, waxa weeye Orhan isagoo aabihiis oo nool ayuu maamulka dowladda wuxuu maamulayay muddo 6 sano. yacni weli ma dhicin boqor isaga oo nool wiilkiisa xukunka ku wareejiya yiraahda adiga sii wad aniga xoogaa maaragtay. marka boqor Cusmaan 67 sano ayuu ku dhiman doonaa raximahullah, laakiin cimrigiisii 6 sano u dambeysay wuxuu maamulka ku wareejiyay ninkii la yiraahdo Orhan. marka Orhan waxa weeye waa boqor isagoo aabihiis nool dowladda sii maamuliyay, markuu aabihiis dhintayna maamulkii iyo hawshii meesha ka sii wada. kadib marka waxaa isbedelay siyaasadii iyo politically dowladda Cuthmaaniyiinta ay ku socotay. markay ahayd sanadku hadduu ilaahay ku run yahay 7 Maarso 1331 furashadii magaalada Iznik wixii ka dambeeyay waxaa isbedeshay dowladda Cuthmaaniyiinta nidaamkii ku socotay. marka waxaa dhacday markii laga furtay nimankii Byzance magaalada Iznik oo ah magaaladii labaad ee Cuthmaaniyiinta ay ka furanayaan. markaas Cuthmaaniyiinta markii la fiiriyo waxay jirtaa ilaa adiga 50 sano 40 sano ilaa 60 sano inta u dhaxayso oo ay iska kala dhaxlayaan markaas boqoradii. kadib markii magaalada Iznik la furtay, dadkii gaalada magaaladaas laga xoreeyay ama boqortooyadii laga xoreeyay Byzance la oran jiray, ninkii hogaamin jiray oo magaciisa la oran jiray Andronikos Bolophlikos wuxuu dejiyay ama tactic ah uu keenay nidaam ah in lagu duulo dowladda Cuthmaaniyiinta oo la hor istaago. haddii islaamku waxay yiraahdaan haddii islaamku ku socoto dowladda Cuthmaaniyiinta waxay gaari doontaa heer ay maanta aysan joogin. waxay la wareegi doontaa maamullo badan, waxay la wareegi doontaa nidaam iyo shacab iyo dhaqaalo badan ay heli doontaa. marka ninkii la yiraahdo Andronikos waxay ahayd sifaad ay ku kala dhaxlaan boqoradii waagaas maamuli jiray ama kasoo horjeeday dowladda Cuthmaaniyiinta ee gaalada ahay. isaga marka wuxuu ahay kan saddexaad, waa Andronikos ka saddexaad, magaciisa la yiraahdo Bolophlikos. wuxuu sameeyay marka uu qorsheeyay isaga taliyaashiisa ilaa in la diyaariyo 8,000 oo ciidan oo la dagaalama dowladda Cuthmaaniyiinta. marka dowladda Cuthmaaniyiinta dabcan alkoor waxaa lagu soo qaadi jiray muxaarabo ama dagaalo yaryaro wadada inta loo galo askartii socoto wadada loo galo ama dadku shucuubta dowladda Cuthmaaniyiinta la dhibaateeyo wax noocaas oo kale. laakiin duulaan intaas gaarsiisan ilaa iyo 8,000 duulaan gaarsiisan ciidan ah Orhan sistamkiisa iyo nidaamkiisa iyo maamulkiisa ayaa ugu horreeyay. waxay sameeyeen marka markii ninka Byzance dowladda Byzance ninkii hogaaminayay gaalka hogaaminayay uu soo watay 8,000 oo ciidan wuxuu ku soo duulay marka inuu dib u soo furto magaalada la yiraahdo Iznik iyo Bursa. marka Bursa inta la garan Bursa waxay noqotay magaalo Cuthmaaniyiinta ay degto oo ay magaalo madax u noqoto ay ka maamulaan waxa la wixii markaas ama gobolada badan ee hoos yimaada dowladda Cuthmaaniyiinta. markii dagaalkii duulaanka ay soo qaadeen waxaa iska hoyimid marka waxaa ka war helay arrintii ninkii la yiraahdo Orhan. isla markii Orhan hadii
waa sidaan hore usoo sheegnay waa nin wax walba kusoo talagalay isu soo diyaariyey ay ka go-an tahay dowladdan inuu horumar gaarsiiyo iskuna diyaariyey carqaladaha uu la kulmi karo sida in maaragtay duulaan lagu soo qaadi karo in maaragtay kacdoon lagu sameyn karo in dadka isaga maamulkiisa hoos yimaad naftirkeeda ay ku sameeyaan khiyaano ee isaga gadaashiisa wax ay isdabamarin ku sameeyaan marka waa nin wuxuu ahay askarnimo lagu soo tababaray maadiyanna loo soo dhisay kana dhaxlay aabihiis dowladnimada iyo maamulka iyo maareynta marka oraha markuu maqlay isaga iyo dadkii la wada howsha waxay sameeyeen hadduu ilaahay ku oran yahay waa isku diyaariyeen duulaanka lagu soo qaaday marka 8,000 oo ciidan ah oo lagu soo qaaday maxay u hordegi doontaa laakiin meeshii waxa yaalla waxay tahay ama farqiga yaalla meesha waxay tahay qofna wuxuu ku dagaalamayaa xaq qofna wuxuu ku dagaalamayaa baatil marka nidaamkan ama dagaalkan u dhaxeeya baatilka iyo xaqa sida annaga aan ognahay ictiqaadsanahay ilaahayna uu noo sheegay rasuulkeena suban sallallahu alayhi wasallam uu noo sheegay waxaa guuleysanaya haddii ilaahay yiraahdo mar walbana guuleysta xaqa waa sida aayadda maaragtay ay leedahay waqul jaa alxaqu wazahaqa albaatil ina albaatila kaana zahuuqa marka ictiqaadka ay aaminsanaayeen dowladda cuthmaaniyiinta ama boqoradii lagu soo nidaamiyey oo lagu soo barbaariyey nidaamka dawliga ah wuxuu ahay inay u dagaalamaan xaq u dirir qof markuu xaq u dirirayna waa uu ka awood badan yahay hadduu hal qof yahay waa ka awood badan yahay 8 qof oo ku heshiiyey baatil iyo maaragtay dulinimo marka ninkan gaalada hogaaminayay dowladdii ama boqortooyadii Byzantiga markay kusoo duleen dowladda cuthmaaniyiinta orhaan iyo ciidankiisiiba waxaan isxasuusinaa marka waxay tahay dowladda cuthmaaniyiinta boqoradii hogaaminayay waxaa dhaqankooda ahay in haddii dagaal la geliyo dagaalka iyaga u hormaraan hadda dad waxaa jira boqorro waxaa jira intaas ka seexay ciidanka dhaha dagaalka gala laakiin nimankan hogaamiyay dowladda cuthmaaniyiinta waa ay kaga duwanayeen dhaqankaasoo iyaga dagaalka horkici jiray dhaawac u horeeyo xabaddu waxay markaas jugta u horeyso iyaga ku dhici jirtay marka askar boqorkoodii oo uu horeeyo oo horumar leeyahay haye nakeena waxaa weeye dhaqankaas waa dhaqan laga dhaxlay nabigeena suuban sallallahu alayhi wasallam inuusan asaga dhin saxaabada gale oo asaga inta horkaco u yiraahdo haye kaalay aan jahan marka nidaamkaas waxaa muudkooda iyo moralkooda aad u qancinaya oo u dejinaya oo maaragtay u dhisayay askartii dowladda cuthmaaniyiinta ee maamulka boqor orhaan dagaalka markuu waa bilaawday markuu bilaawday ilaa ciidan 8,000 iyo askartii dowladda cuthmaaniyiinta markii la iska hor yimaaday oo dagaalka uu bilaawday hadee ilaahay qofku la jirin baa guuleysto boqor orhaan ama sultan orhaan wuxuu ku guuleystay inuu ka tallaabo ama dagaalkaasi kaga adkaado 8,000 ee maaragtay kusoo duulay gaalada ahayd dagaalkaas marka dowladda cuthmaaniyiinta waxaa kaga shahiiday ilaa iyo 270 askari oo ciidankii dowladda cuthmaaniyiinta ayaa kaga shahiiday marka dagaalkaas markay ku guuleysteen boqor orhaan iyo maamulkii isaga uu watay iyo nidaamkiisii waxaa meesha ka baxa marka waxay tahay in la yiraahdo ama dowladda cuthmaaniyiinta ayada lagu soo duulaa maahane boqoradii kale ama boqortooyinkii kale ay isdhahaan war annaga teena aan u cabsano oo innaga teena aan iska ilaalino oo nafteena aan u naxno marka dowladda cuthmaaniyiinta waxay meesha ka saartay waxay ahayd mar waxaa jira mugta weer lagu soo weeraray adiga daafaca gelis laakiin dowladda waa isbedesho waxay ahayd gobolba markay qabsadaanba gobol kale ayay kusii duulayeen oo ay sii xoreysanayeen sidaasna uu ku faafayay nidaamka dawliga ama dowladda cuthmaaniyiinta waxaana sii badanaya shucuubta iyo dadka soo islaamaya markii dagaalkaas lagaga guuleystay nimankii kasoo horjeeday dowladda cuthmaaniyiinta ee Byzantiga ahay waxay fahmeen in aysan ku guuleysanaynin ama aysan waxba ku qaadaynin xabad ama dagaal ama duulaan aysan ku qaadaynin marka boqorkii xataa dagaalkan 8 ciidan ee gaalada ay ku duuleen dowladda cuthmaaniyiinta markii askar badan waa kaga baqtisay ninkii hogaaminayay ama boqorkii iyagu ahay naftigiisana ku dhaawacmay marka halkaas waxaa kasoo gaarsay dowladdii Byzantiga jug aad u weyn laanno sanado badan waxaa laga xoreystay magaalada Bursa lagala wareegay waxaa lagala wareegay magaalada la yiraahdo Iznik waxaa hadda marka jab weyn loo sii geystay marka nimankii hogaaminayay dowladdii ii sheeg boqortooyadii gaalada waxay sameeyaan in ay la heshiiyaan boqor orhaan marka oo ay yiraahdaan wareed intaan dagaal annaga ma sii wadi karno iyo naftigood caqligeedu qabina
ma aysan horsaagi karin dowlad soo ifbaxaysa ama dowlad islaamiya oo aada loogu xiiso qabo in ay soo hor istaagto ama dowladda cuthmaaniyiinta. marka orhan gazi wuxuu ku dadaalo waxay ahayd in nidaamkiisa dawliga markas dambeysa ay sii horumarto, dowlatul cuthmaaniya ay gaarsiiso horumar ah inay dhul badan qabsato, inay magaalooyin badan la wareegto. mar walba marka magaalo ay la wareegto waxaa sii kordhaya dhaqaalaheeda, waxaa sii kordhaya ciidankeeda, waxaa sii kordhaya nidaamkeeda dowladnimo. marka dowladda cuthmaaniyiinta markii ay fureen waxbarashadii waa iska soo dhiseen, ciidankii waa ay soo dhiseen, dhaqaalihii waa ay soo dhiseen, waxay noqdeen marka dowlad aan hor istaagi karin. marka boqor orhan dabcan xiliyadan iyo marxaladahan kala duwan oo uu sii marayo way isbedelaysay, oo yani cimrigana waa uu sii socdaa. marka boqor orhan wuxuu dhintay allah u naxariistee maarso 1362. wuxuu dhashay 1274, wuxuu dhintay 1362. marka dowladda cuthmaaniyiinta marxaladaas kala duwan ay soo martay, boqorka kasii dambeeya waxbuu u dhiibayay ilaa markaas maanta xaaladda aanu ku joogno ama qarnigan aanu ku noolnahay dowladda cuthmaaniyiinta ay noqoto dowlad taariikhdeeda iyo nidaamkeeda ilaa ay hadda laga akhristo taariikhda daafaha caalamka. marka dowladda cuthmaaniyiinta haddaan isxasuusino nidaamkeedii iyo dhaqankeedii wuxuu ku salaysnaa waxay ahayd diinka iyo shareecada islaamka iyo qaanuunka. meel walba ay tagto waxay geenaysay cadaaladda iyo nidaamka uu qabo diinteena suuban, waxaa weeye ii sheeg ayna farayso. marka markii la leeyahay dowlad baa la asaasaya ama dowlad baa la dhisaya wax fudud maaha. weliba haddana qarnigaas markii lasii fiiriyo dowlad dhisid ama dowlad in la sameeyo waxay ahayd wax maaragtay fudud maahan ama ugu soo orad maysan ahayn. laakiin haddana saasoo tahay dowladda cuthmaaniyiinta waxaa ilaahay ku guuleysiiyey boqorka uu kasii dambeeyo inuu meeshooda kasii wado, inuu nidaamkii sii hormariyo, in juhdigii iyo sii laba jibaaro, shucuub badanna ay soo islaamto oo ay aaminaan fikirka ah in maanta dowlad islaamiya la dhiso, dowlad islaamiya ay shaqeynayso. kadib marka waxaa isbedela marka falsafadii laga aaminsanaa dowladda cuthmaaniyiinta. waxaa bilaabatay in laga heebeysto, waxaa bilaabatay si quman ama si toosa inta loola tacaamulo ama sidii dowladda inta loola dhaqmo la yihahdo haye war nala heshiiya, war heshiis nala gala, ha ahaada mid dagaal mid ganacsi ha ahaado. markii aan leenahay ninkan byzansigoo kale dagaalo badan looga guuleystay, magaalooyin badan laga furtay, caqligiisu isticmaalay, wuxuu keenay in maaragta uu bilaabay inuu la heshiiyo boqor orhan, uu yiraahdo niyahow haddee waa iga guuleysatay, waxaa weeye magaalooyin badan baad furatay, nidaam baad dhisatay, waxaan rabaa inaan toos kuula heshiiyo, ciidankayga iyo kuwaaga ku biiraan, aan isku furno magaalooyinyada iyo kale aan degannahay, in aan maaragtay ganacsigood isku furnaado, aan la kala xirin. boqor orhan marka aada usoo dhaweeyey, leanno asiga siyaasadda u watayna sidaan hore usoo sheegnayba waxyaabaha ay ku dhisneed waxaa ka mid ah inay tahay dowlad u nugul ama mar walbaba aaminsan heshiiska, aaminsan nidaamka dowladnimada, oo aysan adiga awood badan, adaa soo ifbaxaya, adigaa wax walba qabsan kara, adaa ku duuli kara aysan hayne xad iyo xuduud ay laheedoo qofka issoo dhiib aan lagu xadgudbeen, qofkii heshiis raba heshiis laga galayo. marka waxaa dhacda marka ninkii gaalada markaas hogaaminaya boqorkii dowladda gaalada ee byzansiga ee la dagaalamay boqor orhan wuxuu sameeyey isagoo ku dadaalaya heshiiska ah in dowladda cuthmaaniyiinta boqorkiisa boqor orhan uu ku daro gabadhiisii. waa ninka la yiraahdo gaalada hogaaminaya aan kusoo sheegno magaciisii Andronikos Belovlikos, waa ninka saddexaad dowladdii markaas boqortooyada hogaaminaya. wuxuu heshiis la galay orhan, wuxuu ku yiri hadda niyahow heshiiskan maadaama la gasho waxaan rabaa inaan gabadhiida ugu daro. halkaas ayuu wuxuu ku guursaday orhan gabadhii boqorkii ninkii ahay dowladdii byzansiga ninka hogaaminaya, isla markaasna dhex maray nidaam dawli ah, mid dhaqaale iyo mid dhinac kasta ah. marka orhan marka uu ku guursaday gabadhii boqorka dowladda byzansiga ay isdhexgal u yimaaday, dowladdan byzansiga marka maadaama ay cuthmaaniyiinta ay kala kulantay jab xoogan, ay kala kulantay
hadduu ilaahay ku ron yahay cawaaqib xumo badan waxaa kusoo duulay marka oo bilaabay inay kusoo duulaan dowladihii kale iyo boqoradii kale oo la leeyahayba dowladdan cuthmaaniyiinta ayaa soo jebisay annaga dhinacaan ka galno aan dhulka qabsano iyada dan baa la wareega marka ninkii boqorka waagaas ahay siyaasadda wuxuu diga waxay ahayd hal albaab u furnayd oo halka asbaab uu yahay in uu la heshiiyo boqor orhaan uu yiraahdo duulaan baa lagu soo yahay waxaan u baahanahay garab istaagaaga waxaan u baahanahay caawitaankaaga cuthmaan wuxuu yidhi kusoo dhaweynaya meel alla meeshaad u baahan tahay iyo ciidan intaad u baahan tahay waan ku siinayaa ha kaa celiyaan cadowgaas marka waxaa bilaabata marka nidaam ah in dowladda cuthmaaniyiinta laisku soo dhiibo ciidankii ama dadkii markaas boqortooyadii byzansiga hor joogay ama hoos joogay ay bilaabaan inay diinka islaamka wax ka bartaan dhaqanka islaamka ay qaataan fikirka dowladda cuthmaaniyiinta ay ku dadaalaan oo ay fahmaan kadib marka waxaa dhalatay in dhaqamadii iyo bulshadii isdhexgal dheer kadib oo dowladda cuthmaaniyiinta ay noqoto dowlad si toosa ula wareegta hadduu ilaahay ku run yahay boqortooyadii byzansiga ee cuthmaaniyiinta maaragtay ku ahayd duulaanka marka dowladda cuthmaaniyiinta waxay ku guuleysatay awalkooda wuxuu kasoo bilowda dagaalka kow in magaalo la xoreeyo magaalo labaad la xoreeyo gobol la xoreeyo hadda sheekada waa isbedesha marka in dowlado laga guuleysto in boqortooyada dhisnaay la dumiyo dhulka ay haysanatay ee dowladda cuthmaaniyiinta qabsadaan ay la wareegaan oo ay sameeyaan markaas nidaam islaami ah ay meesha geeyaan marka waxaa dhacda waxay ahayd ninka la yidhaahdo boqor orhaan wuxuu bilaabay marka inuu askartiisii iyo dadkii waagaasi ciidankiisii iyo shucuubtiiba siyaasaddii waa la bedelo marka waxaa bilaabatay awalka hore asia kasoo bilaabtay baasha in haddana marka yurub u gudbaan yurub markay u gudbaan marka yurub saad la socotaan boqortooyo badan baa ka dhisan inta badanna waxaa u badnaayeen gaalo ilaa marka programkeena dabcan waxaa weeye waxaan soo gaarnay qaybihiisii gabagabada insha allah waxaan rabnaa marka waxay tahay inaan fahno taariikhda loo soo maray dowladaha maanta ama shucuubta ama taariikhda maanta dhisan si fudud laguma soo sameyn marka dowladda cuthmaaniyiinta nidaamkaas soo martay boqor orhaan wuxuu soo gaarsiiyey heerkaas wuxuuna dhintay sanadku markaa 1362 marka insha allahu tacaala maanta waxaan uga hadlayna waxay ahayd aasaaskii dowladda cuthmaaniyiinta iyo bilowgii iyo curashadii iyo shaqagalkii dowladda cuthmaaniyiinta marka maanta waxaan halkan kusoo gabagabeyna waxay tahay taariikh nololeedkii iyo siyaasaddii iyo marxaladdii ay soo martay dowladda cuthmaaniyiinta maamulkii boqor orhaan weliba marka waxaan rabaa inaan idinkugu daro waxay weeye suldaan marka leeyahay kelimadan suldaan waxaa weeye boqorkii u horreeyay dowladda cuthmaaniyiinta ee lagu naaneyso oo loogu magac daro wuxuu ahay ninka la yidhaahdo orhaan isaga loogu magac daro gaaladii waxay u yaqaaneen king waxaa weeye dowlad nimankan kale islaamka iyo dadka isaga la nool waxay u yaqaaneen waxay ahayd suldaan marka magaca suldaan ee dowladda cuthmaaniyiinta wuxuu ahay boqorkii u horreeyay oo uu maaragtay loogu magac daro dowladda cuthmaaniyiinta waxay soo martay marxalado kala duwan waxay soo martay xaalado kala duwan maamulo kala duwan soo martay marka maanta waxaan halkan kusoo gogoyna waxay tahay taariikhdii boqor orhaan insha allah waxaan noo xogi doono ilaa iyo ramadaan dhammaadkiisa boqor walba nidaamkii iyo dowladdii uu soo marsiiyey iyo heerka uu soo gaarsiiyey marka waxaad ku masaabeenna waxay tahay insha allah waxaan malayna waxaa laidin gaar xilligii afuruna sanadaan leeyahay رمضان كريم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإنه بركت إن شاء الله حلقة دي أفراد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته